wareer kalamaanow maalin dhawaaytay wala in bayaanideen shalayna jamaawa hayti hatta butuka ari bulshadiya bilaayada tiya buuqisdiyaan teeganya mas wala isbedeli war buuq iyo mashaakil ma jirin shalay iyo daraad iyo maanta midne xagee ku aragtaa adigu warnimayo buuqaan wuxuu ka bilowday jidadka xiran anigu jid la sii xiraya maahana mid la furaya ma arkin nimayo bulshadu waa dhibanta waxbana walaxaa ka daran sidii jidadka looga xirtana jadiinkana waa ka go'ay war waa saaxatay waana soo toosteene miyaydaan idinkuuna aydaan ahayn war dadku waa wada socdaa haddana waa kala socdaa warnimayo buuq baad ka hadlaysaane bugtii baa weli socota maantana iska tawfiiq dad shacaba ayaa lagu qarxiyey ummaddan meel uma fayaaba qaajaa horay u dilaysa qaraxna ma lagu sii wadaa warnimayow madaxweynihii hore sheekh shariif sheekh axmed oo maanta hadlay wuxuu yidhi sidii aan markii hore ballan qaaday dowladda waxba kama sheegayo waxaana siyaasiyiinta mid xil hayay midaan xil haynba ugu baaqayaa inay dowladnimada ka shaqeeyaan waxaa kaloo uu yidhi amnigii faraha ayuu ka baxay shabaabaa lala heshiinayaana waan maqlayaa shabaab dekadda muqdisho canshuur ka qaata qaab loola heshiiyey ma aqaane marka hore aan aragno dowladda shabaab la dagaalanta waranintoo ka dararafadi lankastoo mas-uulnimaha mari weli shayba abniga faraha ka bahaya la teega ma jiray ha aw shariif may kala niinshaani war sheekh shariif war uma haysiine wuxuu yidhi madaxweyne xasan sheekh waxaa lagu xamanayay inuu dowladda duminayo waana u tegey arrintaasna waan kala hadlay wuxuuna ii sheegay in ay been abuur tahay oo aysan waxba ka jirin gacantan xasan sheekh ka qabtay oo madaxweyne farmaajaan u geeyey waxaanan ku idhi xasan sheekh dowlad dumi maayee taladiisa dhegayso way ballameen ballantiina ilaa hadda farmaajaa lagala yahay war guddoomiyihii hore ee baarlamaanka jawaari mayba erey 1945 ya waddankan ka dambayti wal xisbiye lileeyo marka reed ma intaas ka daray dadka inoo la barawaaye mi'naha xisbiyada la sheegow war madaxweynihii hore xasan sheekh maxamuud wuxuu yidhi hadda ka hor muddo 30 sano ku dhowaada ayaa keligii talis waddankaan haystay ilaa haddana waxaan ka soo kaban la'nahay dhibaatadiisii maantana waxaa ii muuqata in halkiina lagu celi rabo marka waxaan ka digayaa inaan arrintaasi dib dambe u dhicin oo aan lagu riyoon war aana helo boqol qof oo dooba taliyaas ama dheeranin taliyafadan lanko shilaysin oo taliyma inaan diidintin dalka aryaadaha wasiirka maaliyadda Bayle wuxuu yiri IMF waa ku qanacday sidaan uga soo baxnay sharuudaha deyn cafinta war wala weynay markaa idinkuna ma ku qanacdeen warnimiyo umaysiin warsaday wala deebiyo deenti la hagaadi leeyay ma aragne deenta ay la hangaadi war waxa la yiri nirignaylihii jalisayo idaha nuugaysa naflahaaradana naaxday oo nuuxsan kari weyday iyo weylan noogaan arkaayo nasiib daran ana maxadan uga lisan war xildhibaanada labada gole ee baarlamaanka oo haysta dhalashada Ingiriiska safiirkooda ay Muqdisho kula kulmeen war xildhibaanada Ingiriiska ka jiray ma aha war ma xildhibaanada Ingiriis ay maamula war waxa la yiri ninkii laba dal yeeshaa midkood waa dayacaya warnimayow madaxda maamul goboleedyada ee Nairobi joogay waxay la kulmeen safiirkii gabnaha ee Mareykanka haba la kulmeen ma xumeen meeqa dollar u qaybshahe horta nimayo Mareykanku nagama uusan xishoon asagoo madaxdeena dhirirkooda og markuu gaabow noo soo magacaabay war aanel walba ma ooshiidi umuditaladu wayto wal antaliye waleeri aryaadaha baarlamaanka xaa ka hadlaysan xildhibaano cusub ah bariga baydhabo uga soo biiray war maanta ka korman aan u baxday kulanka golaha shacabka wareedha waxa la yiri shacabkii magaalada marka dhibaata haysata shabaabna dhinacu ka go'doomiyaa la yiri dhinacna dawladda ka go'doomisay war shacabkaada sheega sahooba shabaab iyo dawladda marka fadaayaan hambinaayde marka maamuleena warmada waxa la yiri jacayl 4.5 hadaan lagu qaybsanayn xisbina lagu soo dhisayn isteed goboleed miyay lamaana iscaashaqa xiriir ku samayn karaan yartaan u dabaaldegoon hilowga ku doortay ay taageerada ha iska lumin dastuurkii guurka iyo muddadii leynoo qabtiyo mandatekii qoysasko horta lagu kala tagiyo xeer hoosaadkana ha jabin war guurkiinina ma 4.5 buu noqday war maamul iyo jacayl maxaa iska quseeyay jirra siyaasadda qabtaa war Kenya may hamiin imaalan kuundiri waysan dad la hawka haaye ciidamada danab oo Soomaaliland u bari aryaa danab maahina waa dayuuradaha Mareykanka waxa bari duqeeyaa la yiri daroona lidama taqaanina laga tagto